kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada qodobada ugu doorka roon warkeena caawa. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe ayaa dowladda Soomaaliya ku dhaliilay inaysan ixtiraamin dastuurka u yaala dalka Soomaaliya. Axmed Ducaale Geelle Xaaf madaxweynaha Galmudugna waxa uu shir degdeg ah isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya. dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa uu dadaal ku bixinayaa sidii dib loogu furi lahaa isu socodka Garowe iyo Boosaaso. militariga Suudaan oo sheegay inay diyaar u yihiin wadahadal xilli xaaladda Khartoum ay weli kacsan tahay. qaramada midoobeyna waxay ka digaysaa xaalad macluul ah oo soo wajahda Soomaaliya. waxay sheegtay in 5 milyan oo Soomaali ah ay u baahan yihiin cunto. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa isagoo carab muujinaya waxa uu mar kale ku celiyay in Jubbaland ay xaq u leedahay fulinta doorashadeeda. cid ku faragelin kartaana aysan jirin. waxa lagu dhaqmayo waa dastuurka ay leedahay Jubbaland. cid faragelin ku samayn kartaana ma jirto. warqadda maalin dhaweyd uu qorayay wasiirka arrimaha gudaha waxay ahayd hawshii looga baahnaa markii maamul goboleedyada la dhisayay. marka waxa fiicnaan lahayd dhaqankaas in aad iska daysaan, ayuu yiri Axmed Maxamed Islaam. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa isagoo la hadlayay dowladda federaalka ah wuxuu sheegay in dhammaan madaxda Soomaaliya ay ku yimaadeen dastuurka, sidaasi awgeedna dastuurka federaalka iyo kan maamul goboleedyada oo xaq u siinayaan in Jubbaland ay qabsato doorashadeeda. madaxda dowladda federaalka waxaan dhihi lahaa wadankan boogu leeyahay welina ma bogsanin. waxay u baahan yihiin in la dhayo iyo in sharci lagu dhaqo, balse laguma wada joogi karo. anaa idhi qaacidadii aan shalay shabaab ka diidnay ma aqbalayno in villa Soomaaliya laga soo yeeriyo. ha u hoggaansamaan sharciga ay ku joogaan. haddii ay u hoggaansami waayaanna qof walba iriddiisa ayaa loo banaynayaa. waxaan oran lahaa dowladda dhexe ha ilaaliso waxa heshiiska lagu yahay. dastuurka baa lagu wada yimid. madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha, afhayeenka baarlamaanka, xildhibaanada dhammaan waxay ku yimaadeen dastuur. haddii taas la waayana Soomaaliya way istaqaanaayo nin ka xoog badan ma uu jiro, ayuu ku daray. Axmed Madoobe oo waqti xaaligan madaxweyne ka ah dowlad goboleedka Jubbaland ayaa mar kale doonaya inuu xilka u tartamo xilli doorashada waqtiga loo ballansan yahay ay ka dhiman tahay muddo 4 bilood ah. ku dhawaad muddo 7 oo hakad ku jiray isu socodka magaalada xarunta ah ee Garowe iyo magaalada Boosaaso ayaa hadda waxaa socda dadaalo loogu raadinayo sidii dib loogu furi lahaa. kadib markii daadadkii ka dhashay roobkii dhawaa ay waxyeello ka soo gaartay wadada dheer ee isku xirta labada magaalo. madaxweyne ku-xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash oo ay weheliyaan guddiga gurmadka iyo fatahaadaha maamulka gobolka Nugaal kan degmada Garowe iyo xubno kale ayaa maanta daah furay olole isku tashiyo dib loogu furayo isku socodka laamiga dheer ee isku xira magaalada ganacsiga ee Boosaaso iyo magaalooyinka kale ee Puntland oo ay ka mid tahay Garowe. hawshan oo si isku tashi ah loo hirgelinayo ayaa waxaa la dhisayaa waddo macmal ah oo si ku meel gaar ah loo adeegsan doono inta biyaha ay jiifaan dhulka, sida ay sheegeen injineerada iyo wasiirka howlaha guud oo xusay in 24 saacadood ay ku qaadan doonto. dhawaan ayay ahayd markii roobab laxaad leh oo ka da'ay gobolada Nugaal iyo Karkaar ay burburiyeen buundooyinkii ku yaalay laamiga u dhaxeeya Garowe iyo Qardho. war qoraalaha oo ka soo baxay maamul goboleedka Galmudug ayaa shir degdeg ah la isugu yeeray madaxda maamul goboleedyada qaybta ka ah dowladda federaalka ah ka oo looga arinsanayo xaaladda guud ee dalka. qoraalkan ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo ku qornaa af Ingiriis ayaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku fashilantay dhammaan waxyaabihii looga igmaday.
waxaa lagu eedeeyey in ay ku mashquulsan tahay burburinta nidaamka federaalka ee dalka ka jira. dowladda federaalka ayay sidoo kale ku eedeysay in ay dagaal kula jirto maamulka Galmudug, isla markaana laga jaray dhaqaalihii iyo mashaariicdii horumarineed. war-saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay in kulanka uu ka dhici doono magaalada Dhuusamareeb, iyadoo oo beesha caalamka loogu baaqay in ay si gaar ah isha ugu hayso Soomaaliya. maamulka Galmudug ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan magacaabidda ergeyga cusub ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Swan, oo dhowaan uu magacaabay xogayaha guud ee qaramada midoobay. bartamihii bishiina dhaaftay ee May ayaa ahayd markii uu fashilmay shirkii u dhaxeeyay dowladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada, iyadoo aanay wax natiijo ah ka soo bixin shirkii Garowe ka dhacay. hoggaanka militariga gacanta ku haya maamulka dalka Suudaan ayaa shaaca ka qaaday in ay diyaar u yihiin wadaxaajood aan shuruud lagu xirin si xal loogu helo dhibaatada ka aloosan dalkaasi. balse weli rasaas ayaa maanta laga maqlayaa magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan, kadib markii 2 maalmood oo ciidamada ammaanka ay ku dileen 60 qof oo ka mid ah dibadbaxayaasha. isbitaalada magaalada Khartoum ayaa sheegay in ay la xarbinayaan inay la tacaalaan tirada dadka dhaawaca ah kadib markii ay ciidamada ammaanka Isniintii bilaabeen weerar ka dhan ah dadka shacabka ah ee dibadbax fadhiga ka wada dibadda xarunta ciidamada. dhanka kale, hogaamiyaha militariga haya talada dalka Generaal Cabdilfataax Burhaan ayaa maanta sheegay in uu diyaar u yahay inuu wada hadal ka galo mustaqbalka dalka, maalin kadib markii uu sidaasi diiday. annagoo ah golaha ku-meel gaarka ah ee militariga, waxaan diyaar u nahay in aan gacmo furan ku soo dhaweyno in aan wada xaajood ka galno annagoon wax shuruud ah ku xiraynin. ujeeddada keliya ee aan ka leenahayna waa danta qaranka, taasi oon u mari karno in aan u yagleelno maamul sharci ah oo ka turjumaya rabitaanka shacabka, ka turjumaya rabitaanka kacaanka Suudaan iyo dhammaan dhinacyada kala duwan, ayuu yidhi Generaal Cabdilfataax al-Burhaan. militariga ayaa cambaarayn kala kulmay caalamka tan iyo markii ay rasaas noolnool u adeegsadeen dad dibadbaxayaal ah, kuwaasi oo ka dalbanaya in maamulka dalkaasi loo dhiibo dad rayid ah. qaramada midoobay ayaa ka digtay in 5 milyan iyo 400 oo kun oo Soomaali ah oo ay saameeyeen abaaro si xumaanaya oo ka jira Soomaaliya ay halis ugu jiraan in bisha soo socota ay wajahaan cunto yari aad u daran haddii aan si degdeg ah loogu helin gargaar nafbadbaadin ah. hay-addu waxay sheegtay in abaarahan la xiriira dhinaca cimilada ay yihiin kuwo ku soo laabtay Soomaaliya. tani ayaa sii murjinaysa xaaladda nololeed ee malaayiin qof oo ay mar hore soo barakiciyeen colaado gaamuray oo ka taagan Soomaaliya. arrintan ayaa imaanaysa xilli Soomaalida ay bilaabeen inay ka soo kabtaan saameyntii ay ku reebtay abaar socotay muddo 2 sano ah, taasi oo dhammaatay sanadkii 2017. abaartaasi ayaa waxay ku qasabtay in guryahooda ay ka cararaan in ka badan 1 milyan oo qof si ay u raadsadaan cunto, biyo iyo shaqo. UNHCR ayaa ku warantay in abaarta hadda ka jirta Soomaaliya ay ilaa iyo hadda ay barakiciyeen dad gaaraya 50,000 oo ruux. afhayeen u hadlay hay-addan ayaa sheegay in cunto yarida ay mar hore bilaabatay, isagoo ka digay in waqtiga uu aad u yar yahay si loola gaaro dadka ay saameysay abaarta. waxaan intaas raaciyay in bisha soo socota ay xaaladda aad uga sii dari doonto. sidoo kale waxa uu sheegay in xaaladda 2 milyan iyo 200 oo kun oo qof oo Soomaali ah ay hadda la liitaan gaajo una baahan yihiin cunto iyo gargaar bini'aadanimo oo degdeg ah. qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in hadda kaliya la helay 710 milyan oo doolarka Mareykanka ah, kaasi oo gargaar degdeg ah loogu iibin rabo dadka ay abaartu saameysay ee ku nool gudaha Soomaaliya.